karaynaa dhibaatada naloo geystay mid af leh mid adin leh markaasaanu ama cafin karaynaa ama aanu aarsan karaynaa laakiinse inta ciidanna dul joogo nin dhaglow maqal inta ciidan guriga iyaga ku jiro wax wada hadal oo dhaxaynaya ma jiro wax wada hadal aanu la galaynaa ma ay jirto haddii xabadi joojin imaanayso waa xabad joojin ciidanka lagu qaadayo ta kaliyaanu damaanad qaadi karaynaa wata xabad joojin ciidan lagu qaadayo guryahooda lagu celinayo annagu waxaanu mas'uuliyadeeda qaadi karaynaa ciidankaas oo guuraya kuwa iyagu inay xabad ku ridin laakiinse ciidankaas oo degan ma mas'uuliyad qaadayno in ay xabad laga daynayo maxaa yeelay ninkii aabihii dilay wiilkan ee walaalkii dilay ee gurigiisa dumiyey ha ku dul joogo ha ku nabad galo meelay adduunka ka dhacdaa ma jirto waxaanu leenahay maamulka isaaq ee Somaliland maytida aad hafraysaan ka daayay maytida magaaladii waa la dumiyo dadku ka daada duminaya magaalada kii soo duulay ilaahay hadduu kuu roon yahay dadka guryihiisa ku dhex jiray ee duminayay ee dadka leynaya dhiigga daadinayay yaa leh nabadgelyadii cid baa ku cayaaraysa waxaan arkayay Salmaan Maxamed Aadan oo shalay ka hadlayay golahooda oo leh wada hadalkii waxaa diiday garaadada dhulbahante waa nasiib darro weyn nimaad ku soo duushay gurigiisii duminayso ilaahay hadduu dadkiisii laynayso inaad haddana ku tiraahdo wada hadalkiibuu diiday waxaa ka habboonaan lahayd inuu bareero oo yiraahdo inay isdhiibaan bay diideen hadalkaasi hadal la garan karo yuu ahaan lahaa annagaa diidna inaanu isdhiibno annagaa la dulli qaadan mayno annagaa ka dooranayna inaanu gunnimo ku noolaano geeri ka dooranayno dadkayagaa ka doortay waxa aanu diidnay waxa weeye anoo ku dilaya isacabtu waxaanu diidnay waxa weeye anigoo guryahaaga duminaya dushooda meydkaaga dushiisa igula hadal waxaanu leenahay annagu burco dumin mayno hargeysana ma duminayno berberana duulaan kuma nihin ciidana nagama dul joogo laakiin hadday arrintan sidan ku sii socoto oo waliba dilka cayna loogu daro meelay aadi doonto xaajadan alla og meelay aadi doonto xaajadan alla og waxaanu adduunka u sheegaynaa ciidankan guryaha iyaga duminaya dadka iyaga laynaya hana laga dulqaado waxaanu doonaynaa waxa weeye markaas bay wada hadal imaan kara markaasaanu ka hadli karaynaa dhibaatada naloo geystay mid af leh mid adin leh markaasaanu ama cafin karaynaa ama aanu aarsan karaynaa laakiinse inta ciidanna dul joogo nin dhaglow maqal inta ciidan guriga iyaga ku jiro wax wada hadal oo dhaxaynaya ma jiro wax wada hadal aanu la galaynaa ma ay jirto haddii xabadi joojin imaanayso waa xabad joojin ciidanka lagu qaadayo ta kaliyaanu damaanad qaadi karaynaa wata xabad joojin ciidan lagu qaadayo guryahooda lagu celinayo annagu waxaanu mas'uuliyadeeda qaadi karaynaa ciidankaas oo guuraya kuwa iyagu inay xabad ku ridin laakiinse ciidankaas oo degan ma mas'uuliyad qaadayno in ay xabad laga daynayo maxaa yeelay ninkii aabihii dilay wiilkan ee walaalkii dilay ee gurigiisa dumiyey ha ku dul joogo ha ku nabad galo meelay adduunka ka dhacdaa ma jirto waxaanu leenahay maamulka isaaq ee Somaliland maytida aad hafraysaan ka daayay maytida garaad Cabdiqali baan kala go wadan seexin anaa ka dhaxlay garaatooyada aabahay baan seexin awowgay baan seexin jiif caaqil cali kooraan seexin ilaahay hadduu kuu roon yahay xad annaga iyo isaaq aanu ku wada jiro oo Soomaali aanu kaga soocannahay oo jiraan jirin warsangeli iyo isaaq xad ay gooni uga soocan yihiin Soomaalida kale oo ay baan jirin xad qabiilaynu leenahay xad qabiilo
oo warsangeli iyo isaaq u dhaxeeya jira xad qabiilo oo dhulbahante iyo isaaq u dhaxeeya jira ka weeye ka kaliya inuu ku xisaabtamayna gaala Soomaali qaybsanaysay oo Talyaani iyo Ingiriis aha oo iyagu sidaynu wax u qaybsanaa 1884 soo qaybsaday baynu inagu ku noolaanayna idinka yeelimayn nabad hadaa doonaysaan guriyihiina ku noqda nolol hadaa doonaysaan guriyihiina ku noqda labada baad ku heli karaysaan annagu nabad iyo nolol loo taala inta wiil facay ama asaaga iyo dhulka yaga sheeganayo nabad iyo nolol waxaan ku falaynaa ma ay jirto wabillahi tawfiq karayna dhibaatada nolol geystay mid af leh mid adil leh markaasaanu ama afin karayna ama aanu aarsan karayna laakiinse inta ciidanna dul joogo nin dhaglow maqal inta ciidan guriga iyaga ku jiro wax wada hadal loo dhaxaynaya ma jiro wax wada hadal aanu la galeynaa ma ay jirto haddii xabadi joojin imaanayso waa xabad joojin ciidanka lagu qaaday ta kaliyaanu damaanad qaadi karayna wata xabad joojin ciidan lagu qaadayo guryahooda lagu celinayo annagu waxaanu mas'uuliyadeeda qaadi karaynaa ciidankaas oo guurayo kuwa iyagu inay xabad ku ridin laakiin ciidankaas oo degan ma mas'uuliyad qaadayno in ay xabad laga daynayo maxaa yeelay ninkii aabihii dilay wiilkan ee walaalkii dilay ee gurigiisa dumiyay ha ku dul joogo ha ku nabad galo meelay adduunka ka dhacdaa ma jirto waxaanu leenahay maamulka isaaq ee Somaliland maytida aad hafraysaan ka daaya maytida karayna dhibaatada nolol geystay mid af leh mid adil leh markaasaanu ama afin karayna ama aanu aarsan karayna laakiinse inta ciidanna dul joogo nin dhaglow maqal inta ciidan guriga iyaga ku jiro wax wada hadal loo dhaxaynaya ma jiro wax wada hadal aanu la galeynaa ma ay jirto haddii xabadi joojin imaanayso waa xabad joojin ciidanka lagu qaaday ta kaliyaanu damaanad qaadi karayna wata xabad joojin ciidan lagu qaadayo guryahooda lagu celinayo annagu waxaanu mas'uuliyadeeda qaadi karaynaa ciidankaas oo guurayo kuwa iyagu inay xabad ku ridin laakiin ciidankaas oo degan ma mas'uuliyad qaadayno in ay xabad laga daynayo maxaa yeelay ninkii aabihii dilay wiilkan ee walaalkii dilay ee gurigiisa dumiyay ha ku dul joogo ha ku nabad galo meelay adduunka ka dhacdaa ma jirto waxaanu leenahay maamulka isaaq ee Somaliland maytida aad hafraysaan ka daaya maytida waxaan ku samaroonku annaga oo naag aadi ka sharaf badan isaaq iyo samarona way yaqaaniin waana la yaqaanaa sida adibaad marka ka hadal balan basheed kinin weydo arabixida aan hore arna ala baa ku yaala waa kiniina liq عربية أكو قبوا كنينة قرحة وأروان إني أنا بلا ملكيني بينا لسه أنا نينا خيجا أصلا نيجا حدنا تدبوا تسوي واحد رجية دبر ولا ولا تقال لما يا حلقة نوا جوج عده لاس أنا ذا لو تعالي الدولة دي ساقو كده سناكر ترى ما جرتو الدولة دي ساقو أنا جو أنت هذا ممكن شيء أنا ما جرتو أنا جو ما تيساق رجية دبر بانو سر جوكسني هو يا ذا دخل خواص إلى دلله أبا هاي سنة قالوا يا سواسي وأنا جو رجية جو كاشر بدين هنا قصة جوجين يساق بس ودافو شلنا واسيقاني وأنا ليس براني كذا الله وأنا كتقاني إنا عربي خير الماضي تتكرين ولا لك جرتي وأنا على ولا خير وكرين لك عربي خير ولا جرتي لك بلان بالكيو هاجي وادقرن أنا وأنا نبعت خوصة جوابي دورة إيسا يا حيبا كعلك ويلا ناك تقوص ناك ناك ترش